بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سود وهذا ميل والبقى جوكتين أصحابي جنالكو وقروح دمر أوفيشيالتو كسوده هذا ديقو عصب تاي وأي تاي مركي كوغو هوريسي فضلا وحان كاعصانايا جنالك إنا سبسكرايب سارتو لايك سارتو سي شير كريسو وأد لو وداك سي أد ولو وداك أصحاب تاعدك إن شاء الله أصحاب تقاليقة waxaa idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaad soo dhawaada mininku waa minikiin yaa ismartiyeynina asxaabta qaaliga ah asxaabay sida aragtaanbo baaquligaas waxaa noogu jiro kareem yaroo nafaqa ah oo maasha allah oo timaha maxaa la dhahaye nafaqa kuu siinaayo kalarna kuu siinaayo timahana maasha allah timahana wuu kuu bixinayaa waa nafaqo oo timaha saa idin sheegaybo nafaqana wuu kuu siinaayo wuuna kuu bixinayaa marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin haddii alla idmo insha allah asxaabteeda qaaliga ah waxaa ku jiro janalka fiidiyoyaal badan oo aan macnaha 1 iyo 2 ahayn oo aan ugu talagalay timaha marka insha allah waxaan rajeynayaa fiidiyoyadaasna inaad ka faa'iideysan doontaan haddii alla idmo janalkan waxaan ugu talagalay qurxin waxaa kaloo ku jiro kuwa loogu talagalay wajiga ayaa ku jiro insha allah adiga qurxin nooc walba oo dabiici waad ka soo helaysaa marka asxaabteeda qaaliga ah insha allah aan usoo noqdo kareemkan markii aad subsato insha allah adiga waxaad marsanaysaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo haddii ilaahay yiraahdo asxaabta qaaliga ah waa kareem aan caadi ahayn innaba caadi ma ahan anigu waan ka helay idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin marka insha allah asxaabteena sidaan u suubin doono iyo waxaan ka suubinahay insha allah la daawada halkan waxaa noo yaalo baaquli marka halkaas waxaan ku haystaa kafeey ayaan ku haystaa adiga kafeeyga doonta isticmaali kartaa ama kan warqadaha ku jiro ama kan kooraba ahaado marka insha allah qaadadii ayaan waxaan kusoo shubanayaa kafeygii 2 qaad ayaan ka isticmaalayaa alaabtan timaha waxay ugu fiican tahay maxaa ka galay kalarna way ku siinaysaa timaha maasha allah waa nafaqa aan caadi ahayn asxaabta qaaliga ah marka waa ujeedin marka hore baaquliga biyo yar oo lahaa laakiin maxaa la dhahay baaquliga ayaa qoynaa marka insha allah waxaan kusoo dari doonaa la arka halkaas waxaan ku haystaa malabkaas oo ah malab saafi ah malab ma tahay ma ahan waa malab saafi ah ayaan ku soo daray malabkana tinta aad ugu fiican yahay malabka hadii la cuno hadii korka la marsado hadii tinta la marsado meel uusan ku wanaagsaneyn malahan laakiin malabku ha ahaado saafi marka insha allah waa isku soo labaaya xoogaa yar waxaan rabaa inuu si fiican isku qaato xogaa oo taagtaaga u kabo insha allah marka insha allah sabtida qaaliga hadda halkan ila soo gaartid waxa ka codsanayaa subscribe inaad saarto channelka waxba kaama dhibeyso inaad subscribe saarto channelka oo aad like-tana saarto like-tu waxay faa'iido noogu tahay channelka hore ayuu sii soconayo meelo fara badan ayaa laga arkayaa insha allah marka asxaabteyda oo ujeedinsaan isku soo dhaxgelinayo wakasa kafeeygu si sahal macnaha ku dhalaalo marka insha allah markii macnaha lagu daro ama saliid lagu daro kaleeto malabka lagu daro kaleeto xoogaa taagtaag ayuu ahaanayaa marka insha allah isla soconna asxaabta qaaliga ah alaabtan timaha aad ayay ugu fiican tahay marso ilmahaaga u mari dawaakaasa waa nafaqo lagu daray insha allah waxaan soo qabsaday xabad ukuna adiga intii aad maxaalaha aad tihiin ay kugu xiran tahay marka intaan hadda hal qof camal waa xabadii ukunteeda ayaan kusoo daray marka waan qasayaa waxa iiga dhacay ukunta qaybteedii cadaanka ahayd jajabka iiga dhacay afkeeda hore marka waan ku qasayaa waa aragtay sooma
ما شاء الله. alaabtan nafaqo aan caadi ahayn waayo dib kugu celinayaa. alaabta markii aad subsato timahaaga haddii badan yihiin laba qaybaa ka dhigay. haddii uu maxaa la dhahaa yar yahayna hadda waaba kaasaa wuuba yar yahay. laakiin haddii uu timahaaga badan yahay laba qaybaa ka dhigay. qaybba maraad marinaya waa tinta laftaad kula masaajeynaysaa. lafta tinta keliya wax la mariyo waxa uma tarayso, laakiin lafta ayaad gaarsiinaysaa. lafta timaha lafta ay gaarsiinaya. markaa waxaa timahaaga markaa marinaysid markaad lafta ku masaajeyso natiijadeeda waad helaysaa. laakiin haddaad timaha kore bes le asoo marmarisid wax natiijo ma ka gaaraysid. marka lafta ala rabaa inay ka qaadato. marka waa aragtiin waan soo dhexgelinayaa, waa isku soo garaacoyaa si uu si fiican isugu dhexgalo. insha allah waxaan rabaa inaan baabi'iyo maxaa la dhahaa kafaygi inuusan muuqaninaan rabaa insha allah. marka qaadada le adi ku walaaqi waa ku garaaci si uu si fiican isugu dhexgalo. marka insha allah asxaabteyda qaaliga waan jeclahay. waa kaas saas u yaala waa aragtiin sooma ما شاء الله. marka kulli wixii kale aan ku soo dari doonana waa isla arkeena hadii Ilaahay idmo. waxaan ku soo halkaas ku haystaa yogurt ayaan ku haystaa. marka adiga yogurt ka doonto isticmaal. caano waa caano. marka iyo hadda waxaan ku soo darsanayaa wax yar ayaan ku soo darayaa oo waan ku garaacayaa. caanahana madaxa ama timaha aan nafaqo u leeyahay. soo dhexgelinaa si fiican adi qaadada ya si fiican ugu garaac. qaadadii labaadan ku daray. qaadada si fiican ugu garaac si ay waxa dhan isku lahaadaan si fiican isugu soo dhexgalaan. insha allah asxaabteyda qaaliga ah si fiican isku dhexgali. yogurtka noocii aad doontid ayaa isticmaali kartaa. muhiim ma aha kan aan isticmaalay, laakiin adi midkaad doontid markaas ay haysatid ama ku dhow isticmaal. marka waxaan ku soo darayaa vitamin E ayaan ku soo darayaa. vitamin E gana timaha aad ayuu ugu fiican yahay. timaha way bixisaa ma sha Allah. vitamin E ga meel u fiicnayn malahan. 2.3 aan ka dhigay oo dhibic ayaan ku soo daray. marka haddii aad kan aad haysanin waxaa ku soo darsan kartaa midka capsule-ka ayaad ku darsan kartaa. 2 xabo ayaan ku soo darsanaysaa. marka waa ka saa alaabteeni sidaas quruxda badan la ayuu ku soo baxay. ma laga sheekeyn karo. alaabtan saa idin sheegay waxaa timahaaga marinaysaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo. intii adiga aad jaanis u haysid timahana waa ku masaajeynaysaa si fiican ugu masaajeynaysaa. markaa ku masaajeysid oo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo aad joogtid ayaa iska dhaqaysaa. shaambada isticmaalaysidna iyaysan ahaanin shaambo oo timaha ka gurayso. shaambooyin waxaa jira timahaba ayaga guro. marka natiijadeedana waa arkaysaa oo maxaa la dhahaa waa nafaqa. waa ujeedin waxa la isku soo daray waa ukun ayaa ku jirto. waad ogtihiin ukunta kaligeedii oo la mariyo timaha waxay u tahay timaha nafaqo. vitamin E ku jiro, caana ku jiro. inta isku soo daray waa arkayseen. marka waxaa ku darsan kartaa haddii aad rabtid adiga saliid waa ku dari kartaa. marka saliidda ku sii dartana waa ka sii fiican tahay. marka insha Allah ani hadda kuma soo darsanin. marka asxaabta qaaliga ah insha Allah waa aragtiin alaabtiisa isugu soo dardaray. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin videogan. insha Allah waa idin soo gelinayaa fiidiyooyo badan haddii alla idmo. asxaabteyda qaaliga aan jeclaa ayaad tihiin. marka asxaabta qaaliga ah waa kaas asaas quruxda badan ayuu ku soo baxay. timahaaga wuxuu siinayaa kalar qurux badan ayuu siinayaa. insha Allah waa idinka sii tagay salaanta. Assalaamu calaykum.